وهاجا dhegeystayaal waxaad dhegeysateen akhbaaraadkii ugu door corona warkeena duhurnimo iminkii haatan ku soo dhawaada akhbaaraadka oo faahfaahsan idinsi aan baqaad anigoo Mun Xuseen Cabdi qarax lagu weeraray saldhig ay ku sugan yihiin ciidamada Amisom Cumar Muxudiin Cumar ayaa warbixinta warkaan oo si aan baqaadaya waa bariga hore ee Saaka ayaa waxa qaraxyo waaweyn laga maqlay saldhig ciidamada ka tirsan kuwa midowga Afrika Amisom ay ku leeyihiin degmada Baraawe ee xarunta rasmiga ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed wararkan helayna ayaa waxa ay sheegayaan in gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa la beegsaday saldhig weyn oo ciidanka Amisom ay ku leeyihiin garoonka diyaaradaha magaalada Baraawe isla markaana qaraxyada kadib la maqlay rasaas xooggan oo ay rideen ciidamada Amisom ee halkaas ku sugnaa al-shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda qaraxaas waxaana baraha warkooda ay ku faafiyeen lagu sheegay in laba gaari oo laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa ay ku weerareen xerada isla markaana ay khasaaro gaarsiiyeen ciidanka Uganda oo ka tirsan kuwa midowga Afrika ee Amisom ee Soomaaliya u jooga nabad ilaalinta dadka degmada Baraawe qaarkood ayaa waxa ay sheegeen in ay maqlayeen dhawaqa qaraxyada ay yeeshaysan cadeyn karin khasaaraha ka dhashay waxaana degan xaaladda magaalada maadaama saldhigga uu ku yaalo banaanka degmada Baraawe ee gobolka Shabeellada Hoose maamulka degmada Baraawe ee gobolka Shabeellada Hoose wali kama hadleen weerarada ismiidaaminta ah ee lagu qaaday saldhigga weyn ee ciidamada Amisom ay ku leeyihiin degmadaasi aad ayuu mahadsanyahay Cumar Muxudiin Cumar warbixinta warkaan la soo codsiinay farmaajo oo qadka taleefanka kula xiriiray madaxweynaha Djibouti iyo amiirka Qatar warbixinta warkaan waxaan oo si aan baqaadaya Mustafa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa qadka taleefanka waxa uu kula xiriiray madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa iska xog wareystay hanaanka iskaashiga labada dal ee walaalaha iyo sidoo kale xakameynta ka hortagga caabuqa COVID-19 madaxweyne Farmaajo ayaana la wadaagay dhigiisa dalka Djibouti in shacabka iyo sidoo kale dawladda Soomaaliyeed ay la dareemayaan walaalahooda Djibouti murugada iyo sidoo kale dhibaatada ka dhalatay daadadka ku fitay dalkaasi oo soo laabtay iyo sidoo kale khasaaraha ka dhashay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ayaa ugu hambaliyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dawladda Soomaaliyeed iyo sidoo kale curashada bisha barakeysan ee Ramadaan dhanka kale madaxweynaha Jamhuuriyadda ayaa qadka taleefanka waxa uu kula xiriiray amiirka dalka Qatar waxaana ay ka wada hadleen horumarinta iskaashiga iyo sidoo kale xiriirka labada dal gaar ahaan dadaalada caalamiga ah ee lagu wajahayo xakameynta iyo sidoo kale ka hortagga cudurka COVID-19 madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xusay muhiimadda ay leedahay mideynta dadaalada lagu xakameynayo faafitaanka cudurka safmarka isagoona soo bandhigay mudnaanta ay leedahay in la xoojiyo iskaashiga ku aadan isweydaarsiga khibradaha iyo sidoo kale iyadoo markaasi laga hortagayo xanuunka COVID-19 mahadsanid taliyaha ciidamada dhulka xooga dalka Soomaaliyeed General Cabdi Maxamuud Dhiiri ayaa faahfaahin ka bixiyay howlgallada maalmihii la soo dhaafay ee ciidamada ka wadeen deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose taliyaha ayaa waxa uu sheegay in ciidamada ay guulo ka gaareen howlgalladii ay ugu dambeeyay ay fuliyeen deegaano ka tirsan gobolkaasi isla markaana ay khasaare ku gaarsiiyeen al-shabaab sida uu hadalka u dhigay saraakiisha kale ee ciidamada dawladda ee ka howlgala ayaa taliyaha ugu baaqay inay kordhiyaan isaga oo sheegay in muddo 7 ay al-shabaab ugu saari doonaan deegaanada ay kaga sugiyiin gobolka Shabeellada Hoose ciidanka dawladda ayaa bilihii ugu dambeeyay waxay fuliyeen howlgalla kala duwan waxaana taliska ciidanka xooga dalka ay maalin ka hor sheegeen inay wareejiyeen ciidamada gaashaanle ay kala wareegeen deegaanada gaashaanle jilib marka iyo deegaano kaleento liiska golaha wasiirada galmudug oo lagu dhawaaqay siyaasiyiin caan oo ka soo muuqday aan iraahdey Cumar Muxudiin Cumar ayaa warbixinta warka markale inoo faahfaahinaya madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa magacaabay golihiisa wasiirada oo ka kooban 23 wasiir kuwaas oo ay ka dhex muuqdaan xubno caan oo ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya xildhibaan Axmed Macalin Fiqi sidoo kale xildhibaan Saabir Nuur Shuuri oo labaduba ka tirsan golaha baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo warbaahinta la hadlay ayaa golaha wasiirada cusub ee uu magacaabay waxa uu rajeeyay in xilkooda sidii loogu talagalay ay uga soo baxaan sadaqtihiin hawlihii muhiimka ahaa ee dhamaystirka ama isu keenida dhammaan qaybaha kala duwan ee reer Galmudug tabashooyinka ama kala duwanaanshuhu ka dhax jiray
runtii waxaad ogtihiin inay noo soo qabsoomeen ilaahay fadligiisa howlo waaweyn oo galmudug ugu jira baal dahab ah. intaa kadib caawa waxaan soo magacownay xukuumad adag, tayo leh, hufnaan leh, runtii labeentii reer galmudug oo aan waxba lagu darayne ay tahay wax cad inay yihiin dadkii ugu habboonaa ama ugu hufnaa ama dhinac walba ugu horreeyey oo magacyadooda iyo aqoontooda aanan halkan sharaxaad badan uga baahnayn. waa taariikh cusub ayna inay galmudug inaan xubno ama mas-uuliyiin sarsare oon uga maarmi weynay inay galmudug howlaha muhiimka ay horyaalla ka shaqeeyaan, inay aqbaleen xilal waaweyn ay hayeen uga soo tageen galmudug inay ka shaqeeyaan. dhammaan xubnahaas si guud iyo si gaaraba ugu mahad celinaynaa. dadka aan magacownay xubnaha walaha wasiirada cusub ee magacownay kuwa xilka doonayay oo xilka raadinayay uma badna, kuwa xilka u baahnaa ayay u badan yihiin ama wada yihiin. waxaan leenahay waa fursad iyo jaanis ay haystaan ay heleen reer galmudug. waxaan u rajaynayaa inay shaqadooda iyo waajibaadkooda gutaan oo aan insha Allah ku kalsoonahay inay ka soo dhalaali doonaan galmudugna waa cusub bari doono xagga shaqada. mahadsanid Cumar Muxudiin Cumar. madaxweyne akhbaraadka dibadda qodobka ugu door karan duhurnimadan Hiiraan idin haysta ayaa dhageystayaal waxa uu noqonayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa cambaareen xoogan kala kulmay dhaqaatiirta caafimaadka caalamka kadib markii ay soo jeediyeen daraasad lagu sameeyo daawada jeermiska disha in lagu daweyn karo cudurka coronavirus. sidoo kale Donald Trump ayaa ku dhawaaqay in meydka cudurka u dhinto ama qofku u dhinto cudurka coronavirus lagu dhaqo ilayska loo yaqaan UVA jeermiska disha. fikirkaasina ay dhaqaatiirta ka gaashaan ka dhigteen. markii ugu horeysay waxa uu Donald Trump sheegay in ilayska cadceeda ay daawada jeermiska disha ay ka wanaagsan tahay caabuqa. Mr. Donald Trump ayaa wuxuu digniin culus u soo jeediyay wakaaladda arrimaha caafimaadka ee xilka saaran dalkiisa iyaga oo sheegay inuusan arrimaha dawooyinka ay faraha la soo gelin. waa hagaaga dhageystayaal saaxiibayaal warkii duwadeed kala socoteen warbaahintii Hiiraan waa geynta cidda warkayga seegi waxay dib kaga daalac kartaa www.hiiraan.com/net